maalintii dhulkan laydinku leynayay qaxdeen dulcadii xiriya qaxoontiga joogtay haddii inta qabaa'il kale ama dawlado kale ama yuhuud ama cid kale inta la soo raro burciya hargeysiya berberiya inta lamida la dejiyo oo aadna weli aad rafanayso dagaalamaysid ninka yidhaahda kuwa la soo raree meesha la dejiyay xaq bay u leeyihiin waa dawlado waa rumaysanay maxaad ka rumaysnaan lahayd adigu cid kale ka fikri meel kalena ka raadin maanta qaxoontiga joogtay haddii lagu soo weydaarto burciya hargeysiya berbero inta ama yuhuud la soo dejiyo ama dad kale la soo dejiyo ninka yidhaahda waan u ictiraafay inay leeyihiin waayo qurumaha dawladda iyo carab baa sheegtay iyo war carabi ilaahay kitaabkiisa kuma dhaqanto kaagamana dhowaa carabi gaal iyo muslimba way leedahay carabi munaafiq iyo muslimba way leedahay carabi wax walba way leedahay adigu nisqiyaas maxaad rumaysanaan lahayd dulcad maalintaad joogtay haddii tan dad la dejiyo weliba la yidhaahdo waa loo rumaysayey ninka yidhaahda markaa waan ictiraafay oo waxaan ictiraafay in hargeysiya burcaqolada la soo dejiyay ay leeyihiin sidaad ka rumaysnaan lahayd unbaa lagaa rumaysayey ayuha alaxiba sidaad bartay oo wax dulminaya haddana wuxuu gartay dulmiga muxtalka ama mustacmarka ama mustawtinka inaanu aqbalin walidalik buu Ian Smith iyo South Africa iyo kuwaasi uu la dagaalamayay dad madow oo nin cadayntu ku soo duulay uu dul degay oo mustacmar buu lahaa laga kiciyo waanu ku gar lahaa dad la dulminayo inuu yidhaahdo yaan la dulminin oo ku gar lahaa adigu haddaad hiilin kari weyday waxba u qaban kari weyday inaad tiraahdo iyagaan rumaysanahay oo aad wadaadda meel ka daydayda iyo war kale iyo beri baa nebi maxamed qole heshiis la galay iyo war nebi maxamed kuwa heshiiska la galayay isaga ku hoos noolaayeen ahludima bay ahayd heshiiska markay buriyeen maxay ku buriyeen gabadh muslimad ay qaawiyeen bes reer banu qaynuqaac saddex qabiilo yuhuudu nebigu heshiis la galay saddexdabana uu la dagaalamo uu ka saaray muxuu uga saaray gabadh muslimada bay suuqa soo gashay dahabka lagu iibiye meelaha wax lagu hayo markaasay qaawiyeen in muslim agtaagan baa kii dilay dabeetana waa la buriyey cahdigoodii waa la buriyey aw kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqu minhum cahdi nimankaa ka guntamay ilaa maalinta yimaadeen ma jiro ballan ay galeen aanay burinina ma jiro kii nebi maxamedna way buriyeen ragga daliil ka dhiganaya nebi maxamed baa la galay way buriyeen wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa ayaa asal u ah heshiisyada wain janaxuu lisalm hadday nabadda u weecdaan adna u weeca baa ilaahay yidhi islaamku dagaal uu iskaga jira ma laha hadday iyagu nabadda u weecdaan adna nabadda u weeca baa ilaahay yidhi kuma odhanaya netanyahu waa nabad dunida u weecday 1,109 masaajid bay dumiyeen hadda 1,109 masaajid iyo 3 kaniisadood 315 qof oo ducaada bay dileen 200,000 oo muslim ah iyo dadkii kalimeesha deganaa isugu jiray ay waxay dileen iyo waxay dhaawaceen ka dhigeen waxay aakhira u direen 2 milyan oo qof ayay gaajaysiiyeen 91% oo dadkaasi ka midi alamna alghadaai ma jira bay leeyihin waa gaaladu say sheegayso waa taqaariirta gaaladu ay ka qorayso gaalaa ka qaylinaysa adduunka wixii gaal joogay ayaa ka qaylinaya maalinta idinku qaxdeen jaamacada maydan lahayn qasi 19 jaamacadood bay lahayd maalinta idinku qaxdeen iskuulada lahaydeen oo dhammi 100 iskuul inay gaadheen ama 200 iskuul baa laga yaabaa 800 iskuul baa meesha ku yaalay wixii waa la tirtiray waa la dumiyey albanki duwali ayaa wuxuu tilmaamayaa 18.5 bilyan waxa lagu qiimeeyay albiniya taxtiya wadooyinka iyo waxay dumiyeen oo qura ma aha albiniya taxtiya baa intaasiya ayuha alaxiba muslimka sidaa loo galayo haddaad wax ka dhicin kari weyday haddaad u gargaari kari weyday haddaad waxba siin kari weyday inaad tidhaahda ka u gelaya oo dhulkiisii haysta soo ma ogid dhulka muslimiinta laga soo qaaday dad baa weli furayaashoodii sita furii gurigiisa sita ninka furii gurigiisa sita inaad tidhaahdo ka ku jiraan rumaysanahay inuu dhulka leeyahay آخر حاجة إيجابية. أتوقع ولا سكر ولا أنكره. سي حاجة هذا صعطة قف ولا هو. قف ولا قف كلها كيف كرين. أدوم حد الله اللي هو ارتجي.